آد وين iyo sharaf iyo karaamo aad u weyn iyo fursad qaali ah ayay ii tahay caawa inaan hor imaado dadkan aadka qiimaha u faraha badan oo si munaasabadaan aan uga soo qayb galo aan u soo safray wax ka badan 30 saacadood safar aad u dheer aniga oo rajeynayay in saacadan qiimaha badan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu fursad ii siiyo inaan idin hor imaado waxaan u mahad celinayaa Allah subhanahu wa ta'ala ka sokow mahadiisa museumka Soomaaliyeed iyo madaxdiisa Minnesota oo ugu horeeyo Adeer Cismaan Cali Ilaahay madaxiisa iyo cimrigiisa ba haraajiyo iyo intii hawshan ka gacan siisay waxaan marka labaad u mahad celinayaa dawladda Mareykanka ee suurto gelisay jawigan quruxda badan ee ogolaanshaheeda iyo dalkeeda inoo suurto gelisay inaan dhaqankeeni iyo jiritaankeenni iyo sharafkeeni ku maamuusno iyagana waxaan leeyahay aad baad ugu mahadsantihiin gacan siinta waqtiga dheer ee dalkeena iyo dadkeena baad gacan siiseen aad noo saacideen fursadan qaaliga ah intaas ka sokow dadka halkan fadhiya oo u badan runtii dad dhalinyaro ah oo Mareykan ku barbaaray ama ku dhashay ama ku soo koray waxa laga yaabaa wax badan oo kamid ah waxa aan ka nimid ama Soomaaliya looga sheekeeyo inaanay xiiso badan ku haynin laakiin waxaan jeclahay anigoo waqtiga ka faa'iideysanaya halkan inaan laba fariimood idin kala wadaago marka koowaad waxaan rabaa inaan idin soo gaarsiiyo salaanta madaxda qaranka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka warqaba munaasabadan iyo qiimaheeda waxaan jeclaan lahaa adeer inaad u guddoonto hambaliyadaas iyo salaantaas iyaga oo dareemaya in mas'uuliyadda ay u egmanaayeen qayb kamid ah halkan lagu hayo si volunteer ama bilaash aad ugu haysaan oo ah jiritaanka ummadda Soomaaliyeed inay u adeegaan muddada ay xilka hayaan taasoo ah waxa loo dhaariyo madaxda salaantaas ka sokow sababta ugu weyn ee munaasabadan ugu soo safray oo aan u imid ee salaantaas aan u wado waxay tahay macnaha iyo nuxurka ka dambeeya shaqada halkan Adeer Cismaan iyo xirtiisu ay ku hayaan iyo waxa aan dal ahaan u aqoonsanahay dawlad ahaan aan u aqoonsanahay taasaan rabaa marka koowaad inaan idin sheego runtu waxay tahay oo xaqiiqadu ay tahay waxa halkan lagu soo bandhigayo ama Ingiriisi lagu soo bandhigo ama Soomaaliha lagu soo bandhigo ka tarjumaya Soomaalinimadu waa wax qiimo aad u weyn leh waqti aad u badan dad badan ay ku soo bixiyeen in ay meeshan soo gaaraan waa waxa kaliya ee isirka Soomaaliga aanu ku kala duwanayn waa ilaalinta afkeena iyo dhaqankeena iyo jiritaankeenna ummadnimo oo taariikh aad u dheer iyo marxalado aad u dheer iyo halis aad u dheer soo martay oo ka soo badbaaday waxaan rabaa marka Adeer Cismaan inaan ilaahdo waxaan rajaynayaa haddii adigu aadan helin abaalmarinta aad mudan tahay ilmahaagu inay helaan oo dadka Soomaaliyeed ay u abaal gudaan 12 sanadood inaad u taagan tahay oo aad ka shaqaynayso in dad Soomaaliyeed oo aan Soomaaliya arkin aad qalbigooda iyo maskaxdooda ku ilaaliso Soomaalinimo oo aad nuujiso aad baan kaaga mahad celinaynaa qiimaha ay leedahay in badan oo naga mid ah waxaan hubaa inayna garawsanayn oo ayna fahamsanayn in halkan laga shido dalkeena waxa uu yahay calankeena suugaanteena labiskeena afkeena waxa dhaxli doona oo ka faa'iideysan doona jiilal aan maanta joogin insha Allah ta'ala qiimaheedana kuwaas ayaa garan doona aad baan kuugu mahad celinaynaa waxa ay ugu dambayso rabo inaan idin soo gaarsiiyo walaalayaal shaqada halkan ka socota waxay ugu dambaysaa halgan dheer oo dadka Soomaaliyeed ay u soo galeen inay ilaashadaan jiritaankooda kuma salaysna siyaasad kuma salaysna qabiil kuma salaysna deegaan waxay ku salaysan tahay identity-ga ama sumadda Soomaaliga in la ilaaliyo dad Soomaaliyeed ayaa soo ilaaliyay marxalado maanta ka adag waxaad ogtiin wadankeena
gumaysiyo kala duwan oo taariikh kala duwan ayuu soo maray laakiin dadkii Soomaaliyeed ee joogay ee aqoontoodu ay yareed ee awoodda ay haystaan ay yareed waxay ku guuleysteen in ay xafidaan oo dhaqamada iyo ilbaxnimada isjiiraysa ay ka ilaashadaan midii ay naaska hooyadood ka nuugeen oo ahayd Soomaalinimada oo ahayd afka oo ahayd dhaqanka wax bilaash ku yimidna ma ahayn in Talyaani iyo Ingiriis iyo Faransiis iyo Greek iyo Portuguese iyo intii ka sii horeysay aanay ku guuleysan in ay afkeena iyo labiska gabadha Soomaaliyeed bedelaan qiimo badan ay ku kacday shaqada uu maanta adeer Cismaan iyo xirtiisu ay hayaana waa isla shaqadaas waa inay wali taas ilaaliyaan marka waxaan dardaarmayaa qiimaha ay leedahay inaan siino waa idin mahad celinayaa dhamaantiin hadalka waa ku dheeraaday waxaan idin dardaarmayaa oo aan idin kaga tegayaa Soomaalinimadu waa naga dhaxaysaa qofna gaar uma laha qabiilna gaar uma laha deegaanna gaar uma laha haddaan jamhuuriyadda ku noolnahay iyo haddaan jamhuuriyadda banaankeeda ku noolnahay haddaan Mareykan nahay iyo haddaan Ingiriis nahay iyo haddaan Soomaali nahay marka ugu dambaysa Soomaalinimo aan isugu imaanaynaa marka taas inaan wada ilaalino ayaan dhammaanteen idin dardaarmayaa qaranka Soomaaliya oo buddig u ahaa ilaalinta arrintaasna maanta wuu soo kabanayaa dhibaato waqti dheer ayuu soo maray waxaan rajaynaynaa inuu booskiisa ku soo laabto waxaan uga baxayaa waqtiga oo gaaban awgeed oo aan jeclaan lahaa adeerkay Cismaan waxaan u sidaa abaalmarin yar oo aanan u sheegin oo dawladda Soomaaliyeed ay go'aansatay inay ku maamuusto waxaan jeclaan lahaa inaan magaca qaranka Soomaaliyeed ku guddoonsiiyo inayna jadwalka ku jirin waa hubaa oo ay gaadmo ku tahay oo uusan hore u maqlin صعبك هي